ma gawsiin haddaan layga siin maax la dhuranaayo inaan malab rag kale loo shushubi wax uga miileeyo aan meesha taagnahay anaan murudna leefaynin aan weliba mood iyo salaan ula maleegnaado aan maydhaxaan igu xidhnayn maylima u qaato masow aabbahay iyo intaan magan ka soo gaadhay saddex magaca lee xaajadaa layma marisiiyo dadku markay xukunka dibadda ka joogaan xukunka waxay ka qabaan misconception complexity-ga dal la rangareeya waxay ku bilaabaysaa maalintii siidka madaxnimada lagaa soo jeediyo oo la yidhaahdo here you go adigaa waxaad tahay madaxweynihii dalka inaad bakayri buuxa oo biyo ah inaad la ordi kartid baa lagaa rabaa in politics waad leedahay miisaankii iyo balanskii inaad leedahay baa lagaa rabaa madaxweyne xasan sheekh si cajiib oo reckless ah buu wuxuu u turiyeynayaa miisaankiisa wadahadalladii imbagaati aad qayb ka ahayd maxaa dhaliyey ama yaa laga fursan waayey ama la dhaafi waayey in dalkani uu noqdo federal system sida haatan caawa siyaasaddu dalka tahay oo kale wax kastoo kale oo dalka ka jira waxaa kala weynaa electoral systemka madaxweynuhu ku soo baxayo in doorasho la qabto nin bilood kale saantiista oo faransiisa baa wuxuu soo saaray sheekada la yidhaahdo the politics of the belly siyaasadda caloosha haa waxaad aragtay waa inta maamul laga yaqaan waxaad aragtay waa inta bisayl laga leeyahay waxaad aragtay waa inta dulqaad laga leeyahay waxaad aragtay marka waa limitation waa gaabis intaan ka badanu ma jirto waa gaabis hadda adduunku wuxuu ku leeyahay you either sink or swim ama dabaalo ama deg ma jirto in lagu bailout gareeyo anymore waxayna dan ka leeyihiin inta baquurad inay dalkaa qaadaan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe garaysaan channelka like saartaan lana wadaagtaan asxaabtiina iminka 95% dadka barnaamijyadeena daawada weli channelka ma subscribe garayn haddii aad barnaamijyadeena xiisayso waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ta ku dhufato iyadoo aanu shilin kaaga bixin taageeradiina aniga iyo howlwadeennada kaleba ee ila shaqeeya waxa ay noo tahay shidaal nagu dhiirageliya inaan dadaalka sii laba jibaarno tayada kor u qaadno idinna soo gudbino warar iyo waraysiyo xiiso leh sidoo kale xagga hoose waxaad nagula wadaagi kartaan mowduucyada aad jeceshiin inaan faaqidno iyo dadka aad doonaysaan inaan hortiina keenno oo aan waraysano inaad sanadiin dhammaantiin